dhageysta waxaan kuu soo gudbinayaa waqtiyada ugu fiican ee qof jacayl lagu abuuri karo. Warbixintan waxaan ku eegaynaa xilliyada ugu wanaagsan ee qofka aad jeceshahay aad ku dareensiin karto inaad jeceshahay. Dad badan ayaa isku dayaya in ay kasbadaan qalbiyada qofka ay jecel yihiin iyaga oo aan eegin marxaladaha ku habboon ee qof jacayl lagu abuuri karo, waxayna la kulmaan inta badan guul darro. waxaana ugu wacan xilliyada ay u gudbinayaan dareenkooda jacayl oo aan waqtiga munaasib u ahayn. Haddaba waxaan idiin soo gudbinayaa qaababka ugu fiican ama ugu sahlan ee qof jacayl lagu beeri karo. Qodobka koowaad ayaa waxa uu yahay qofka waa xilliga uu seexan rabo. Isku day inaad noqoto qofka ugu dambeeya ee la hadla qofka aad doonaysid. bini'aadamka ayaa ka siman xilliga hurdada ka hor in qofka qalbigiisu uu fikiro, wuxuuna ka fikiraa hadaladii ugu dambeeyay ee dhex maray. qofka ayaa bilaaba fikir xilliga hurdada ka hor. fikirka badan ayaa marka dambe isku bedela saameyn jacayl, waxaana wax la hubaa in aad kasban doonto qalbiga qofka. ku dadaal in aad noqoto qofka ugu dambeeya ee la hadla qofka aad doonaysid inaad dareen jacayl ku beerto. qodobka labaad ayaa waxa uu yahay xilliga firaaqada ama fasaxa. ha isku day inaad qofka aad doonaysa aad kula kulanto meelo buuq badan ama dad ay ku badan yihiin. isku day qofka in aad kula kulanto meel cidlo ah ama jawigeedu degan yahay, labadiinana idin saameyn doonta si aad isu dhaafsataan aragti dheer. jawiga cidlada ah waxa uu qayb weyn ka qaataa in qofka aad qalbigiisa gaarsiiso dareenkaaga, halka jawiga buuqa ahna uu qofka ka dhigo mashquul badan iyo in uu ku naco ama uu ku dhibsado. talada saddexaad ee idiin soo gudbinaya ayaa waxa ay tahay habaan marka hore qofka asxaabtiisa ama asxaabteeda. markii aad doonayso inaad qof barato, ha isku mashquulin qofka inaad barato asxaabtiisa. waxaa taa ka imaan kara shaki ah in qofku uu ka boqo in aad sirtiina u gudbisaan asxaabtiisa. ha ku degdegin barashada asxaabtiisa, iska sug ilaa iyo inta uu kaa barayo asxaabtiisa ama asxaabteeda. barashada ayaa noqota caqabad iyo in xitaa isaga oo ku raba laga yaabay in qofkaasi uu cabsi ka qabo in asxaabtiisa ay ogaadaan waxa labadiina idin dhex maray. ugu dambayn, talada afraad ee aan ku siinayo ayaa waxay tahay u gurma xilliyada ay jiraan dhibaatooyinku. isku day inaad noqoto qofka la garab taagan hil iyo hooba xilliyada ay jiraan murugooyinka iyo dhibaatooyinka mahadnada leh. tusi in uusan cidlo dareemin oo aad tahay qof garabkiisa taagan. taas qofka waxa ay u suurto gelin doontaa in uu ogaado wanaagaada. marka daba taa waxaa ka dhalan kara in qofkaasi uu ku jeclaado adiga oo aan dareensiin dareenkaada jacayl. haddii xilligaas aad u bandhigto in aad u qabto dareen jacayl, qofkaasi waxa uu noqonayaa qof ku farxa hadalkaada. waxaan filayaa talooyinkan in